بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada walaalayaal buuggeeni barashada maamulka iyo maareynta cilmiga maamulka iyo maareynta maamulka shaqooyinka uu qabta ayaan maanta uga hadli doonaa halkan si hordhaca maamulka waxa uu qabtaa shaqooyin fara badan oo isku jira shaqooyin sare shaqooyin dhexe iyo shaqooyin hoose intaba shaqooyinkaas waxa waaye waa loo kala duwan yahay tira ahaan iyo noocyada inta ay yihiin intaba waa loo kala duwan yahay marka maamulka shaqooyinka uu qabto oo ugu badan waxa waaye saddexdaas heer ayuu qabtaa heer kasta hina wuxuu qabtaa maamul ayuu qabtaa heer kastana wuxuu qabtaa maamul shaqo ayuu qabtaa marka insha Allah haddii la yiraahdo saasan maanta ku wadi doonaa shaqooyinka ugu muhiimsan oo maamulka qabto waxaa kamid ah guud ahaan la isku raacsan horta shaqooyinka oo maamulka qabto nooc ahaan iyo tir ahaan inta ay yihiin intaba laakiin waxaa jira shaqooyin aad u waaweyn oo la isku raacsan yahay ayaa jira inta tusaale ahaan planning controlling organizing waxyaalahaas waa shaqooyinka inta badan la isku raacsan yahay laakiin waxaa jira shaqooyin kale oo fara badan jira sida shaqaalaysiin sida halkii ahaa waxyaalahaas oo dhan ayaa la dhihi karaa maalinta ka sii dambaysa shaqada maamulka waa arrin muhiim ah oo inta badan waayihii hore maamulka shaqooyinkiisa waa koobnaayeen sababtoo ah fahamka laga qabay ama laga fahansanaa ayaa aad u yaraa waana koobnaa hadda maalin walba shaqo cusub ayaa ku sii darsamayso waana shaqo maalin walba wax cusub laga fahmayo waaye maamulku saas daraadeed marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaa adinka laftirkiina wax badan ka fahmi doontaan ayaan rajeynayaa insha Allah haddii la yiraahdo shaqooyinka ugu waaweyn marka oo hadda la isku raacsan yahay adduunka oo inta badan maamulku way qabtaan la yiraahdo waxaa kamid ah qorsheyn ama waxa la yiraahdaa planning ayaa la yiraahdaa organizing ayaa la yiraahdaa tan isku dubaridid controlling shaqada la controlo iyo shaqaalaysiin waa waxyaalaha kuwa gadaal laga fahmay ay kamid tahay iyo isku xirid macnaha coordination inay wax isku xiraan marka qorsheynta kale maamulku inuu inta meel fadhiisto wax qorsheeyo ka fakaro waxaas oo dhan ayuu qabtaa markuu qorsheeyo ka bacdi wuxuu sameeyaa agaasin wax la yiraahdo ayuu sameeyaa agaasin inuu wixii agaasimo ayuu sameeyaa ka bacdi markuu intaas qabto wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo fulin ayuu sameeyaa ama implementation ayuu sameeyaa implementation ayuu sameeyaa marka tan waxa waaye waa planning waa qorsheyntii isku dubarid organizing fulin implementation ayuu sameynayaa ka bacdi marka implementation kaas la sameeyo waxa la sameeyaa waxa la yiraahdo controlling in shaqadii dib loo controlo oo sidii loo rabay hadii controlkan marka oo noqon waayo wax qaldamaan ama sidii la rabay wax noqon waayaan dib loogu laabtaa qorshaha dib loogu laabtaa maxaa qaldan waxa aan dejinama wax la gaar kara ahayn problemka intuu ka jira ayaa la yiraahdaa qorshihii marka dib loogu laabto wixii laga bedelo haddana waxa lagu soo sameeyaa organizing ama isku dubaridda lagu soo sameeyaa ka bacdi marka isku dubarid lagu soo sameeyo haddana waa la fulinaa wixii dib loo sameeyay haddana waxa la sameeyaa controlling ayaa la sameeyaa waa la controller haddii controlkaas haddana wax ka dhimanaadaan planning ayaa lagu laabanaa ama qorsheyntii marka insha Allah waxaan rajeynayaa wax badan ka fahanteen ayaan rajeynaa marka buugga marka cid u baahan slide-kaas waaye kan hadda waa slideski buugga cid u baahan lambarkaas ay kala xiriiri karaan WhatsApp-kiisa iyo intaba way shaqeynayaan walaal waa mahadsan tahay kanaalkeena haddii casharadan ay ku qanciyeen noo subscribe si hadhow casharada dambe ay ku soo gaaraan waa mahadsantihiin macadka Spain wuxuu ugu talagalay dhammaan dhalinyarada sidii u horumarinayaan xirfadahooda inuu diyaariyo insha Allah waxaan rajeynayaa inaan
ku guuleysan doono dhalinyaro fara badan hadda oo ka aflaxay oo ka bartay cilmiyo fara badan sida xisaabaadka dejinta xisaabaadka waxyaalahaas shirkadaha inay xisaabiyaal u noqdaan iyo inay maamul noqdaan intaba iyo tababarada inaan u qabano marka intaba insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysan doontaan haddii aan la soo xiriirtaan waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum.